dadka inta badan markii la qabto waxay yiraahdaan rabbi irji'uuni rabbi lawla akhartani ila ajalin qariib fa asaddaqa wa akun min as-salihin walan yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ba ilahi ajashu markay timaado ee qofka lagu soo xaadira ayuu mid walba uu leeyahay ilaahu maadi yari kaadi sida oo maxaa soo qabsan lahay saalixiinta kamid noqon laha amal wanaagsan ba ka shaqayn laha sadaqada ayaan la soo bixi laha zakada ayaan bixin laha markaas la leeyahay may haday saacadu timaado cidna ilaahay dib u dhig maayo ogow wala qaaday qabrigii baa la dhigay qabriga markii la dhigayna waa ka oranaya rabbi irji'uuni la'alli a'malu salihan fima tarakt qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wa ala oranaya kalmada uu iska yiriye gadaashiisa waxa xaajiz maanic aakhira uu galay adduuna dib ugu noqon kari maayo hadii tool ha ka dhageysanina baa loo doonaa الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا على ابن أبي طالب dadku way hurdaan maanta way jiifaan qof walba markuu dhinto hurdada ka soo kici doona yara sidan ma mooday sidan ma mooday aw islaantii ma jirto ilmihi ma jiro qabiilkii ma jiro lacagtii ma jirto qabqabtii ma jirto way dhamaatay adii rabbiga baa isku hadhay qabriga dhexdiisa ugu عبدي غسلوك وكفنوك وفي التراب دفنوك لو ظلوا معك ما نفعوك أدونك يجيو ويكو صو ميدين ويكو صو كفين عيد انتك للدلعين ويكو دحدقين هذي هالكا كل سو قليل هايين تلقا وحبكو ميترين عيد كلو كو حدي عبت هذا ما هيسا أنا نيجا كاهين عمل كاغو ما كو حدي يا هريا عمل كاغو هريا سعد بن الربيع يا عبد الرحمن بن عوف أي نبي ولا لا وكدقي سعد بن الربيع قعنته قبت عبد الرحمن بن عوف وعلي دقيسو ما دام النبي ولا لا بدنا ونقدقي نيك مقالة المدينة وقول قالب بدن بانا هي ما أنت لقى بلا ودقايلها هيجي وكا واحد دون تك قادم واحد دون تك استعمال هي ودينا اللي جابوا كين لا بدو مرنا والله هي ودي تاج عشا هي شجوا وأقول نسيب كل أقل دي سينا وتصي كلا دورو أقل كادون توا كوسينه ماذا حينتو تابتي بكويد ولا أديك أي حولها أي رير كاجي يهل كاجا الله أكو بركة يبو كويدي أنا قلنا ننعسك أقانا أيانه هي سوق مقالة المدينة يجيب كويدي بركة سوق مقالة المدينة تصي بالي مصعب بن عمر عبد الرحمن بن عوف مركي دمبي تاجر كمقالة المدينة يسوونه النقطي كان مؤرن سلامته كان والعقد كان وأقل كان السين مورن أصحاب الطمع ملحين ضد قناعة بيهايين ضد دور صوم بيهايين إنك ضد كمسلمين ثم أنت إسكت أوحك له هي أذها سيل دعاقي دقالة وجهل لهايين أي أقل يربولا له بين بين سمسم بين بين بول بين بين سو مجرو بس أدوك المبيا لما له بولا شاس بوش أقل بوشة أو بين بين هذا ميد اسكوريين بهيئة الله شقية مركا بولي مالين تاسن هيئة صو ولاية أقل الذي يريد بوششكي سيدح فريستا مركا سميد أيدي يدوغ بودح فريسين وراوي إيمانك إسلام لما دي آوي بريك قال وح قال لك السوق هذا أيا مسلمين تسلا وبريان ما أنت دوقي هي أنت سوق حين أقل الذي بوششكي اللي دح فريسي ولقلي هاي مالين تهيئة دي بصومر يسمى معويو يا نوغا سيقال هلكا سي فدي او اسكا صبر او بياهنا سي عبو كليا وار ما عاد دوقدو عدبيسا الهي ما غعما هوس دغتدا وقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك حياتك قبل موتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله ولا ليال نصاب وقني إن بدن بكون تابعيني رنتي إن الحافظا أنسو زيارنا ولكن الله عز وجل ما أنتم نقدري
inaan soo booqanno oo masaajidadiina masjid ka mid ah aan nagula tukanno waa ilaahay caza wajalla ma aragtaane nicamtiisay ka mid tahay. anu sheekhulcilmina ma ihi sheekhu sinina ma ihi waxay runba niga weyna ya ama culammadu alxamdulilah waa inala joogtaa. horay markaa inii wacdin jirtay iyakaa inagu dadaalay iyakaa wax inii dhigay. kaliya jamaacadada dacwadda waxaa lagu yaqaanaa waa ziyaaraad, waana soo ziyaarteenuun. magaalooyinkay jamaacadadu maraan, tuulooyinka ayay maraan, miigay ziyaartaan, magaalkay u tagaan, dhallinyaraday u tagaan, odayaashay u tagaan. dadkaasoo dhan la ziyaaranaya waxaa lagala hadlaa uun qofka wax dantiisa unbaa loo sheegaa. wax isaga u danay jamaacaddu qofka u sheegaan iyakoon lacagna cidna ka qaadanayn. marka xadiidkan aan akhrinay ee ka sugnaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam macnihiisa kooban waxa uu nabigu yidhi 5 ka qaniimayso 5 hortood. dhallinyarnimadaada ka faa'iidayso oo ka qaniimayso inta aanad gaboobin ka hor. caafimaad qabka intaad caafimaadka qabtana ka faa'iidaysa caafimaadkaaga intaanad bukoonin ka hor. gacan bannaanidana ka faa'iidayso intaad gacan bannaan tahay ee aanad mashquulin ama wax ku mashquuliya aynan kula soo darsin. gacan bannaaniduna waa nicmada ka faa'iidaysa buu nabigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. غناك قبل فقرك بو نبي ولي انت غني آتهي غني اوف باهدي سو اي urursan tahay oo baryada bini aadanka ka deeqtoon oo xaajaadkiisu ay urursan yihiin inta aad tahayna buu nabigu leeyahay ka faa'iideysa ka hor intuusan faqri kula soo darsin. صحتك قبل سقمك baa nabigu calayhi salaatu wasalaam intaad caafimaadka aada haysid ka qaniimaysa caafimaadkaaga. caafimaadka waa nicmad ilaahay baa bixiya. caafimaadka waxaa gadaal mari doona maaragtaane xanuun baa gadaashiisa iman doona. xayaataka qabla mawtika buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inta aada nooshahay ee aanad dhimanin nolosha waa fursad ku soo martee ka faa'iidaysa ayadana. 5taasuu nabigu ina leeyahay ka qaniimaysta oo ka faa'iidayso oo wax diintaada wax taraya ku qabso, wax aakhiradaada wax ku tarayana ka qabso. dhallinyarnimadu nabigu ku bilaabay dhallinyarnimadu waa fursadina soo maraysa. hadday mar fursadaasi ay ku dhaafto waa ma soo noqotoyo kugu soo noqoni mayso. inta uu qofku dhallinyarada uu yahay gaajana kama cabsado, dhimashana kama cabsado. hurdadu hadday ku yaraatana uma joojiyo, cunadu hadday ku yaraatana uma joojiyo, u adkaystaa. marka dhallinyarnimadu waa fursadina soo maraysa inaan fursadda ka faa'iidaysanno oon ilaahay taacadiisa uga faa'iidaysanno ayaa diinteenna macaaneyna faraysaa. 7 ilaahay caza wajal u harayn doono maalinta harka alla mooyaane har kale uusan jirinna waxaa ka mid ah buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi caza wajalla. ninka dhallinyarada ee dhallinyarnimadiisa ku barbaaray ilaahay taacadiisa maalinka hooska ilaahay uu jiro hoos kale uusan jirin kuwa ilaahay hooskiisa hoos joogsan ayuu ka mid noqon doonaa buu rasuulku yidhi. dhallinyarnimadu waa fursad ku soo maraysa ka qaniimayso, beritoole way ku dhaafi. hadday ku dhaaftana kugu soo noqoni mayse ogow. dad fara badan baa maanta 70-80 jir markay gaadheen waxay ku calaacalayaan ay leeyihiin way dhallinyarnimadeydii ayaa mar unigu celiya, ha ka qaniimaysto ilaahay han soo caabudo si fiican ilaahay han u raaligeliye. dadkii dhallinyarnimadooda ilaahay ku adeecayna qur-aanku si gaar u ammaanay.
أيا كمدا أصحاب الكهف با كمدا أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بإلهي دل يرى أي هايان ربي قد بي آمنين الرميين أنا كنا هنون بنو زيادين بإلهي وأذكتها يحلق دل يرنمدا إنك دل يردو إنه الشهوات كالنفتي سيتو كالصحر ومساجد كيمادا وصلاة جمع وكو إلاليا ودينتي صبرتا ودينتا كو عمل فلا ودينتا إلهي كشغايا وأذكتها لذلك صداسا النبي عليه الصلاة والسلام تضبط إلهي وحدينا ينا واحد لبط نمبر كاللبان لشيغي إنه يهنك دل يرد دل يرمدي سيلاحي كو أضيعي أصحاب الكهف دل يرى يهايين وحال لقو أمانين دل يرى يهايين سورة القرآن كأقو عجائب كبدن أفرت بنا آذن كفد نيساء كجرتو قصد دودو أيا إلهي أيكنا تاريخ دودو كقور رمي يرى موسى والذين كرك سارنا موسى ده يرى موسى نبي أكو صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بإلهي ولبدل يرد أصحاب الكهف تاريخ دمرك علماء كور رمان دad فقراء maaha waxay ka soo jeedeen dad maalqabeennay ka soo jeedeen baa leeyahay ilaahay bay aamineen oo islaamnimadii bay qaateen dadna boqorkii baa ogaaday gaalka ahaa laba mid buu markaa u bandhigay uu kala doorta inaad diintiinii ku soo noqotaan oo diintaasi maxay ahayd inay isaga dib u caabudaan iyo ma aragtaan in intoo la soo qabto geed intoo lagu xidho dhagax tuur lagu wada dilo waxay ka doorbideen dalka dhanba inay uga tagaan dalka iyo diinta waxay doorbideen inay diinta helaan oo dalkooda ay waayaan dadkooga iyo diintoodana waxay ka doorbideen diinta inay helaan ay diin la dhintaan bay ka doorbideen oo dadkooga ay waayaan noloshoodii iyo maaragtaan diintoodana noloshii waxay ka doorbideen diintoodii bay ka doorbideen lana markaas quraanka ilaahay kaga waramo ilaahay uu yiri wiilal yar yar bay ahaayeen maaragtaanay oo maxay heleen ilaahay bay aamineen oo rabbigood bay aamineen baa ilaahay yiri ana kuna hanuun baan u ziyaadinay baa ilaahay yiri dhalinyarada ee dhalinyarnimadiisa ilaahay ku adeeca ee waxa naftiisu ay jeceshahay ka soo hadha ee ilaahay rasuulkiisa raali geliya ilaahayna waa ku farxaa nabiguna uu ku farxaa calayhi salaatu wassalaam saxaabada rasuulkana radiyallahu anhum badankoodu dhalinyaray u badnaayeen baa la yidhi dhalinyaro oo dhalinyarada nabiga ilaahay ugu gargaaray azza wa jalla Mus'ab bin Umayr baa kamid ahaa dhalinyaradii rag yaraanta ku islaamay Mus'ab markaas qoys waliba wuxuu Mus'ab ka dhashay hantiilayaala dadna qoyskii dhaqaalaha badnaa uu ka dhashay wuxuu ka doorbiday inuu ilaahay aamino nabiga raaca calayhi salaatu wassalaam dadna markaas nabiga uu ima jiro nabiga agtiisu diinta ka baran jiray markay reer Madiina soo islaameen ay nabiga weydiisteen maaragtaan cid lagu daro oo diintii quraanka sii barta dadna markaa nabigu Mus'ab buu yiri adigu sii raac Mus'ab وسفيرك ugu horeeyay islaamku uu dirtaba leeyahay magaalada Madiina Mus'ab soo gaadhay ayadoo dadka muslimiintu ay farakuturis ay yihiin masaajidna magaalada Madiina male madrasad ama dugsi diinta ama jaamacad diinta lagu bartana male walaakiin Mus'ab bin Umayr geed hoostii intuu u fadhiistay ansaar ayuu halka ma aragtaan diinta ayuu dadka ku baray oo intuu barayay intii nabigeena uu ka soo maqlay ummadda ku anfacay dacwada sheegideeda iyo diinta sheegideedu culimada kaliya kuma xidhno culimada kaliya ma aragtaan laga marrabo ugu qof kasta oo muslim oo shahaadanaya inta uu yaqaan diinta inuu ummadda ku anfaco looga fadhiya inta taqaan inta culimada ka maqashay ummadda gaarsi Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu intii nabigeena uu ka soo maqlay ayuu Mus'ab magaalada Madiina uu ku afacay
نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومقالة مدينة آنا سوق قارين أقل مجر مقالة مدينة إلا قويس والبدين تو مصعب بن عمر ونحن قبلين قويس والبدين تو ويقشي وأننا اللي يراه ومدير وكوب النبي محمد نسو جوج عليه الصلاة والسلام وقرآن كي نبي كوسو دقا يمارك تاني سو قبتي أو سو حفظيي وأخلاق دي نبي إن انتو سو كوبيي لأن مقالة المدينة اللي يمدي مرقا مجرى أقل مقالة المدينة كويا لا أم قيس إلا مصعب بن عمر دين توقل يبالي يدو نبي يقول سو قال المدينة لأن يردو مجتمع دم بيبدلين وضنا دم بيبدلين إنك ما أنت دل يردني إياك على بدلي أياك أردول قالنا أنا نتجن أردول الإسلام الجوجا أيا ما أنت دل يردني إلا قلبوا اللي بدلوا مضح يكون صعدا مضح دل يرمضوا فرصتكم صوم رئيسا أما تاريخ حم بيدونك كاجر ربي أما تاريخ ونكسب بيدونك كاجر ربي حكوا قبضة دل يرمضوا دي أضرب المات حسابتهم حد قبت نفط هذا ما كو أنفعدي أهل كذا ما كو أنفعدي جار كذا ما كو أنفعدي ضل كذا ومد هذا ما كو أنفعدي مثلا دقن دت كله أي آمن سيهين أياد آمن تول لقعد دعيي شاشة داير موبايل كيد اللي يردن ودقن كأي كأركان أي ما أنت نلوش ودي بدلي ولا ليال ودر كودي بدلو تيمو هوجي بدلي مصعب بن عمر رضي الله عنه مقالة المدينة أنتو تجيبوا بدلي سقو مرقوا نبي مدينة سوق عليه الصلاة والسلام وهذا قيدين رين مدينة سيد النبي أصول دويين مالين مالمها كمدة علي بن أبي طالب النبي سقف الديا أيو مصعب بن عمر نبي صدا أصول أجمري ومصعبه مرد أوسيتو إن ما ركتنا بدرنا دي أنت كبقوا إن عباية دي أوسيتي قد حلتو سوق هذا بسكوك قبتي بالليل بسكوك قبتي مرقاب النبي يقول للمي عليه الصلاة والسلام قول للمي رسولك مرقوا أركي علي باكوين محل له إذا النبي الله نوشك وحولي ألا ترى ماذا أركي يقول مصعب بن عمر ميانا أوجد وعن حصوصي النبي يقول مصعب مكة مركو جوجينا نلا شيء وكل ولا يقدركو كحرقون جري يكبيه ويحرن جري بان حصوصي يا نلا شمانت وكجر ميانا أوجد نلا شيء وكجري النوع هراهي darka quruxda badan la uu ku xaragooni jiray uu ka yimiday noloshaas uu yimiday buri nolosha jirkiisana waxa ka muuqata nafaqa darro darkiisana waad u jeedaan oo qodax ayuu ku qaqabtay nolosha aad ku arkaysaan Mus'ab uu nabigu yiri ilaahay rasuulkiisa kaga raaliye buu yiri dhalinyarnimadaada ama taariikh fiican baad adduunyada ku raabi oo kaga tagi oo waxa lagu oran doonaa yaraantiisa inagaasi diintu wax u qabtay yaraantiisii diintu ku dhaqmaayay yaraantiisii diintu baranayay yaraantiisii labada waalid buu khidmaynayay yaraantiisii mujtamaca uu badilay ayaa la oran doonaa ama waxa la oran doonaa yaraantiisii kaas uu ku soo ciyaaray baa la oran doonaa ku salli rasuulkeena معاذ بن جبل بن نبي يمن ودري كلي معاذ رضي الله عنه وارضاه وصد جر ولي انا غارب النبي يمن ودري مرغاب النبي يقول معاذ قالي يمن بان كو دري maxaad ku kala saari balay sheeg markaasuu kitaabka ilaahay baan ku kala saari oo kitaabka ilaahay hadaad ka weydidna sunnadaada ku kala saari oo sunnadaada hadaad ka weydidna waan dadaali buu marka laabtu nabigu ka dharbaaxo waa uu duceeyo wuxuu yiri ilaaha waxa ku mahadinaya waafajiyay ergadii rasuulka ilaahay uu dirtay wixii ilaahay rasuulku ay jeclaayeen ilaaha ku ilhaamiyay ba mahadlabu rasuulku intii nabigeena uu ka qaado cilmi ayuu wadan intuu la tagu bedilaya saxaabigaas wadan yaradeenu ma waxbay bedilaan sawaalina bedilay ya walina bedilay maanta darkii bay bedileen timihii bay bedileen socodkii bay bedileen magacii bay bedileen yar fadhiista iska fadhiista dhageysta وصلي رسولك شاب نشأ في عبادة الله إن النقطة لقى دونيا نندل يرى
oo dhallinyarnimadiisa ku barbaaray ilaahay daacadiisa ahow Mucaad ibn Jabal intii uu nabiga ka bartay buu wadan dhan gaarsiiyay ku bedelay wadan dhan buu bedelay wadan dhan saadarteed shababaka qabla haramika ba nabigu عليه الصلاه والسلام wadhallinyarnimadaada ka faa'iideyso oo ilaahay daacadiisa uga faa'iideyso aakhirada uu shaqaysadkeega uga faa'iideyso ilaahay raali gelintiisa uga faa'iideyso ما شاء الله هذا لا إله إلا الله هذا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بري هداد قبودid halka maanta sidaad maanta u cibaadeysan kareysid u cibaadeysan kari maysid saad u cibaadeysanaysid maanta uma cibaadeysan kareysid hadaad gabowdid bari toole فراغك قبل شغلك بالنبي عليه الصلاه والسلام انت قعن بنانتحي قعن بنانيدا اد هيستid aanad mashquulina ka faa'iideyso ilaahay taacadiisa uga faa'iideyso نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بالنبي عليه الصلاة والسلام لابا نعمدود بالنبي dadku maanta way ka dagmeen wala badeen نعمدود وفراغ iyo maaragtaana iyo caafimaadka waa laba nicmadood oo ku soo maraysa hadaad ka qaniimaysan weydo oo labada nicmadood intaad haysato aad ilaahay taacadiisa macrifadiisa diinta ku dhaqankeega aad gashani weydid waad ka qoomayn doontaa yoogog maalinka qiyaamaha faraaq gacan banaani inagu maanta Soomaali hadaan nahay waqtigii waan haynaa adduunyada ugama faa'iideysan aakhirana ugama faa'iideysan lidalika waqtigeena maanta cid loo ku daatay dadka kale adduunku awqaadoodii adduunyada galiyeen deedna adduunyada khayraadkeegii bay la soo baxeen inagu adduunyada ma nu galin aakhirana ma nu galin waxa waqtigeena maanta uu ku baxay fadhi ku dar caafimaadkuna waa nicmo ilaahay ku siiyo نعم إلهي بابحي عافماتك يا بحي عافماتك إلهي بابحي إسلام نمدو والنعمة أبوين إلهي بن آدم كوصيو نعمة الله بعد الصور عذاب علماء قارين هذا والنبت قل يدا قارن وحيد هذا ما يوا عافماتك عافماتك والنعمة إلهي بابحي وحصلاتكم معانين يوا عافماتك وحشغدكم معانين يوا عافماتك waxa ma aragtaan reerkaaga iyo awlaadaada dhexjoogooga ku macaaneynaya waa caafimaadka waxa hurdada ku macaaneynaya waa caafimaadka hal habeen hadaad bukoto ma seexan kareysid hal habeen hadii madaxu ku wareero ma seexan kareysid fartaayar hadii cidadu ku xanuunto ma seexan kareysid marka intaad caafimaadka aad haysid uga faa'iideysa ma aragtaan intaanad bukoonin ka hor ila caafimaadkan ilaahay baa keenay oo ku siiyay xanuunkuna uu daba socdaayo ogow wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ba ilaahay yiri wa min kulli shay'in shay kasto adduunka dusheeda la yeelay oo adduunka dusheeda la dhigay ba ilaahay yiri laba nooc baan ka dhignay ba ilaahay yiri la'allakum tadhakkarun inaad marka kuwana qaadataana waan doonaynaa ba ilaahay yiri kuwan tawdaan shay kasto waa laba nooc habeenkii maalinta ayaa ka soo horjeeda labka dhidig ba ka soo horjeeda oo adduunka dusheeda dadka ku nool hadii haween laga dhigi lahaa noloshu qiimo iyo macaan ma yeelateen rag kaliya hadii laga dhigi lahaana noloshu qiimo macna ma yeelateen dadka adduunyada jooga haday wada caafimaad qabi lahaayeen nolosha adduunku macaan ma noqoteen macaan ma yeelateen haday dadku wada bukoon lahaayeen macaan iyo xarakad ma yeelateen inay ina bukooto ina caafimaad qabto ina lab noqoto ina dhidig noqoto ina fuqaraan noqoto ina aghniya noqoto ina ay dhalato ina ay dhimato ina muslim noqoto ina gaalo noqoto ina ay bukooto ina caafimaad qabto ina ay faraxdo ina murugooto ilaahay baa nolosha adduunka sida ugu talagalay wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ba ilaahay xaqiisa u orod koonkan ilaahay baa iska leh adigana ilaahay baa iska kaale fursadahana ilaahay baa ku siiyay dhallinyarnimadu waa fursad ilaahay baa ku siiyay way ku soo mari haday ka tagta ma soo noqonayso
caafimaadku furastaasuu ka mid yahay ka qaniimayso ilaahay taacadiisa iyo raalligelintiisa ugaga faa'iidayso faraaqiya gacan bannaanidu waa nicmo ilaahay ku siiyey intaad gacan bannaan tahay waa nicmada ka faa'iidayso oo ilaahay ugu dhowow oo iimaankaaga ku dhiso diintaada ku baro wixii adduunyadaada wax ku tarayana ku qabso intaanad mashquulin ka hor waad mashquuli ففروا إلى الله إلهي حقي سوء أرض مالك لها أردن الباب ذا كرونا وحريه الباب كستو مخلوق وكل شيء وحد ما وقول الباب كإلهي هم بافورا كاسا للربا إلا قرعوا إله إلا بريو فراغك قبل شغلك أبو نبي يقول فراغك قبل شغلك أنت أنا مشغول مالين بعد مشغول مركي عروتك كوكو بداتو مسؤولياتك كوكو بتان مشغول بعد نقول لكن انت اللي يرى لا تهيد قعن بنان تهي فراغ بعد هاي ستاي إلهي برو او دين هذا برو او عبادة هذا اتكيسو عبادة هذا دس واحد وحكون نغنيسا وإلهي طاعت دي سي واحد وحكون نغنيسا وإلهي معرفة دي سا واحد قيمة كوية لنيسا ودين هذا كورنغن كيغا برشده ده marka ilaahaga cilaaqo fiican la yeelo hadaad maalintaad barwaaqada ku jirta ilaahay aad garato maalinta dhibaata kula soo daristo ilaahay adigana ku soo gurman doonayo ugu حياتك قبل موتك ابو النبي عليه الصلاه والسلام حياتك قبل تنوشهي noloshuna waa fursad aan dacaawa waa wada nool lahay bari inaan gaari doono ilaahay baa garan qof walba saacad buu leeyahay saacadiisa horowna dhaafi maayo dibna uga dhici maayo dadka inta badan markii la qabto waxay yiraahdaan rabbi irji'uuni rabbi lawla akhartani ila ajalin qariib fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ba ilahi ajashu markay timaado ee qofka lagu soo xaadira ayuu mid walba uu leeyahay ilaahu maadi yariikaadi sida oo maxaa soo qabsan lahay صالحين تكمل نقول لها عمل وناكسن باك الشقين لها صدقة أيان لصو بحي لها زكاة أيان بحي لها مرقاس لنا يمي هذا ساعد تماضو عندنا إلى هيدا بوديك ما يوقو والله قاضي قبرك يبا الله دقي قبرك مركي الله دقي نواك أورانا يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وعلى أورنا كلمة أسكيرية قداشي سوحا حاجز مانع آخر أوقلي الدون دب ونغو كريما يحدي طول هكذا كسنين بالوردونا الناس نيام وإذا ماتوا انتبهوا برعال بن أبي طالب لدكو وي هردان مانتا وي جيفان قفل بمركود انتو هردان كسو كعدونا يا سودان ممودين سدن الماضين أو إسلامتي مجرد علمه مجرو قبيلكي مجرو لعقتي مجرتو قبقبتي مجرتو وين مات هذه الرب قابا سكوها قبرك دحدي سوقو عبدي غسلوك وكفنوك وفي التراب دفنوك لو ظلوا معك ما نفعوك أدونك يجيو ويكو صو ميدين ويكو صو كفين عيد انتك للدلاعيين ويكو دحدقين هذي هالكا كولا سو غلي لهاينا تولكا waxba kumay tareen cid kale oo ku hadhay agtaada ma haysa aniga ka ahayn amalkaagu ma ku hadhay ugu ya hadaya amalkaagu adoo wanaagsanaana wanaag ba ku bilaami insha Allah wanaagsan amal wanaagsan ma la tagayna aakhira insha Allah dhacda adoo amalku uu xumaana qofkaasi halis buu galaya ogaada marka shanta tharwadooda ilaahay na siiyay dhalinyarimadu waa fursad caafimaadku waa fursad firaaqu waa fursad ghina intaad ghaniga aad tahay ghani waa maxay waa qofka deeqtoon ee baahidiisu ay kooban tahay ee isagii reerkiisana quutal yoomka ugu helaya waa nicmad inta haystay waa nicmada ugu dadka qaar baa ilaahay ku cuquubaya faqri labada indhood inta u dhaxayso ma faqri loo saaray faqri mooyaane wax kale uu arkaya xataa naarka biqi maayo
نبينا عليه الصلاة والسلام لبابا إلهي بكما قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر بنبي لها إله قال لماذا أديك أن كان مغان قال فقر قال إله وأنو أديك أن كان مغان قال بركة فقر قال الله إنك فايد آمين هذا فقر قال إلهي بنبي كما قال فقر قال معي وأبوكم مشغولون محانا نقول عنا إلما هيغانا محاسيا سيدان نولو الشيء أن أدسا لأن قفك سمرك آخرة هلك أكيلو بدبا مالين جماعاتك وكانوا ضدك جوار خروج نراع بيكو يدادينو وحول عيال يريرو وحان قانا بويد عيال يريرو وحان هايستا إلهي أنا نقول لا نراع بويد ها كواس قال شيء أدي من أيام ورداد جوكتنا إلهي با وحسيا لبويد هداد دمتنا إلهي با وحسين هداد كبوفتنا إلهي با وحسين أديكنا المهاجي ريركا قد ضيع بجماعتكم له مصاريف وحادو هايسنا السيو وقالي إلهي درتين أو بحو دينتا نقال الشغيبة لقويدي أمدن الدين بأوبا هانتا إيمانتا دادكويني هاقاقان مربتاها دالكوينو هاقاقا مربنا هاوان ربنا دالك إيا دادكو وحيكو هاقاقان ودين دين دون الشغيبة أوبا هانتا نقال الشغيبة لقويدي ومركا وقيل كان يوليهي وادور لادين تبليقو ها أفر عيال وحان هياقون إلهي أنا نقول أنا قول نتغانا مركا سأل لقول هدي يكو إلهي وقونين أيا يغانا الله با يقانا بالقول غناك قبل فقرك ابو النبي عليه الصلاه والسلام فرصد الشناد انت غنيغا اتحي معناها باهيدادو اي كوبن تحي اي قوت اليوم غاغنا اد هيستid انت البابده فقرك لوغو فرين كفايده ابو النبي كليه وعبادته كردي وإلهي طاعتي سكود دال ومساجد تعمير المساجد كود دال ودين تبرشده كود دال ودين هذا بس وقف بنا آدم كواحد قيمة كوي لنا يا وأمركم فرصتها ونبي الشاقة أيو مركو قفكو إلهي طاعتي سوقف فائدة يستو أيو قفكو عدون كان ياخره معنا يلن مرقاسا قيمة يلن إنا أنت دلني الرمى دينو لنا عكستي الربانين يسكب قرحيان حق الظاهر كموقال كسرع در قروحسن كبا قروحسن تبا قروحسن موبيل قروحسن قاري قروحسن قاديد قروحسن أقل قروحسن الماء قروحسن هذا أدقو قدها أتك قروحسن تحي وقلبك إلهي وكنت تعلق سيهي دقن كاغونا دقن إسلام أويهي إلهي جل وعلا نلشو وناكسنة دونيسو أساقا كو هايو إلهي ساقا كو قرحن واحد وناكسن مرة أروح وناكسن سو مرة وإن نقولنا أبضوما إلهي وناكسن مسلم وناكسن نقو مسلم وناكسن مسلم مجتمع بدله ينقو مسلم لبدله معها مجتمع لبدله معها مسلم هو حبوب بدلا مسلم هو أسجع لقود ضيداي عيد سجوا كم ضيدو مسلم كي سجع للراعي سجوا ضد كلام الراعو بعد مسلمين تعالم ككون المية للراعي من سيكا قال للراعي إنك لنا وطايو لنا ستة ودن يردني ما تقعمه إنكم جيران ضد كلا قعنته وقلين لكن ضد كلا إليهين أي دن يردني ما تقاته نبي محمد عليه الصلاة والسلام مجتمع وحو أدونك كبيري أساقا كداينا يا بس ساقا جعل ودقنكي سجعل وشريعتي سجعل ودينتي سجعل وطبيعتي سجعل وسيدو النبي أردغ مجري كداينا يعيد كلام كداينا بالين بو أرك الصحابة دي سقار كمدا markuu waysa qaatay biyaha ka daatay jirkiisa ay isbar marinayeen ay ka barakeysanayeen markaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ku yiri maxaa inagu kalifeysada inaad sameysaan oo biyaha jirkayga anigu aan ku waysa qaatay jirkayga soo maray
inaad ismarmarisaan oo ka barakaysataan maxaa uga jeedaan balii sheega waxay yiraahdeen jacayl aanu qabna ilaahay iyo rasuulkiisa ayaanu sida u sameeynaa markaa buu nabigu yiri way fiican tahay laakiin waxaan inii sheegi haddaad doonaysaan ilaahay nabi maxamed inaad jeclaataan ama inay iyagu ay ni jeclaadaan haddaad doonaysaan cidda amaana inii dhiibatay amaanada u haya buu rasuulku yiri haddaad sheekaynaysaan run ku sheekeeya haddaad cid daris la noqotaan cidda dariska aad la tihiin darisnimadooda wanaajiye buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam muslimku waa inuu noqdo qof amaano leh wixii lagu dhiibto amaanadu waa maxay reerkaagu waa amaano ilmahaagu waa amaano waqtigaagu waa amaano caqligaagu waa amaano cimrigaagu waa amaano wixii ilaahay adiga uu ku siiyey waa amaano diintan islaamka ilaahay uu kugu deeqay waa amaano amaanada waxa laga rabaa inaad ilaahay ku dhiibtay aad u ilaaliso halkii uu dhigkuuri aad dhigtaa amaanada bini aadan ay ku dhiibteena waa inaad iyakana amaanada halkii laga rabo waa inaad u dhigtaa dadka haddaad sheekayn buu nabigu dhahe run ku sheegay run muuminku been ma sheego muuminku been ma sheego hadday daris aad cid noqoteenna ciddaa daris aad la noqotaan buu nabigu yiri darisnimadeedu wanaaji muslimku waa inuu ahaadaa qof daris wanaagsan diintan islaamku waa akhlaaq waa dhaqan ilaahay ku abuuray aad kula dhaqmayso dhaqan wanaagsan khalqiga ilaahayna dhaqan wanaagsan aad kula dhaqmayso hada huwa diinul islaam diinta islaamku waa taas Soomaalidu diinta islaamka boqol muslim baan nahay bay koodhan boqol muslim baan nahay xagga nidaamka juqraafiga boqol muslim baa tahay laakiin xagga salaada tukashadeeda imisa naga tukata imisa diin ku dhaqanta imisa diin jecel imisa diin ka shaqaysa imisa diin barata imisa diinta qiimaysa boqol muslim waa tahay xagga juqraafiga laakiin ku dhaqanka hawa islaam مجتمعنا ما أنت واحد وباهنا هي إن هلا مجتمع دين كل نقمايا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تذكر النبي محمد دين بكبير إنه ليش هذا دين فقال هذا مدينو يمد النبي أقل اسمه أقل ودستكما فكرنا كما بلابن أما قالتكم قال هذا المقدسيين هذا النبض عيد الإمام وحبيد السنة يعني وروح عد السنة سواها كهرة يا أيها المسلم ذاتك إن لا دسام ما أنت وباهنا هي ذاتك إن لا دسام yaqiintooda la dhiso salaadooda la dhiso aqoontooda la dhiso akhlaaqdooda la dhiso dhaqankooda la dhiso madiinu soo gaaray nabigu kaleey salaatu wasalaam halku reerkiisa dhigi lahaa nabigu ma calaamadeysane masaajid buu nabigu ma daw calaamadeeyay masaajidku waa meesha muslimiintu ilaahayna kaga xidhmaan ayaka dhexdoodana iskaga soo xidhmaan weeyaan laana masaajidkii faqiirkii baa iman oo madaxdii baa iman oo masaakiintii baa iman oo musaafirkii baa iman oo reemigii baa iman oo reemagaalkii baa iman oo kii bukay baa lagu ogaan oo ka magaalada ka maqan baa lagu ogaan oo ka dhintay baa lagu ogaan oo ka guursanaya baa lagu ogaan masaajidku waa meesha dadka muslimiintu ay ahwaasha ku kala qaataan ee iskaga warhayaan ee isku ogaadaan ee isku salaamaan weeyaan ay ku kulmaan weeyaan waa meesha iyaguna iskaga xidhmaan dadkana dadkuna ilaahay ay kaga xidhmaan weeyaan masjidku marka dadkeena intee maanta masaajidda ku xidhan dhalinyarada inta masjidka ku xidhan iyo inta facebooka ku xidhan midkee badan ya awada qososheene arbaalkaas oo haysta baalkaas maskaxdii indhihiibu inagala baxay ilaahu naga soo saar aamin dhahada ilaahu qalbigeena ka saar ilaahu qalbigeena waxa ka madoobay jacaylka bahalkaas waqtigiini oo dhan maanta waxa uu kulmay maaragtana waa bahalkaas marka nabigeenu kaleey salaatu wasalaam 23 sanadood wuxuu ku dhisay ummad isku niyada isku hadafa isku meel u jeeda isku aragtiya
ummad meel u jeedu nabigu keenay adduunka meel wada socota ummad kala socota ma ummad wada socota ummad isku qalbiya isjecel isku damqanaysa isku naxariisanaysa isku ducaynaysa islaamnimada wuxuu ku zuuliyay qabyaaladii buu ku baabiyay rasuulku qabyaalad بلال الحبشي يا سلمان الفارسي يا صهيب الرومي يا عمر القرشي أي نبي ملكني وذا فريسي مرقاس النبي لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولدقيست النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك آدم بيكسو وذا جيدان آدم با إني وذا دلي والنبي آدم أولادي سيباتهين آدم نعرى يكسو جيدا والنبي آدم عيد بلغ السميي نكا عربيقو نكا عجميقا كاقما فضل بنا عرب نمده وعلقو كلا سريان والنبي يقول والله كعبس علقو كلا سريان الله كبق تاسو النبي يقول مدي سأبر على أساس الإيمان مرقاسو نكي مهاجر كاها إما كلا سو هجرودي وحولو ولا لينين أنصارية نكي أنصاري مدينة سي جوغي إيدتك مقالة مدينة دقان كوغاها وحو نبي ولال كلا دقاونين أنصارية سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف أي نبي ولا لا كدقي سعد بن الربيع قعنتو قبت عبد الرحمن بن عوف وعلي دقيسو ما دام النبي ولا لبدين نقدقي نكا مقالة مدينة وقلنا قالب بضنبانا هاي ما أنت لقى بلا ودقايلا هايقي وكا waxaad doonta ka qaaday buu waxaad doonta ka isticmaal ay weydiina laga buugay laba dumarana waa leeyahay buu taa jacashahay ay sheego waa ku dhisay buu ku aqaladiisina uu tusay kala dooro aqalka doonta waa ku siinay madaxa intuu taabtay buu ku yiri walaal adiga iyo xoolahaaga iyo reerkaaga iyo ehelkaaga Allah ku barakeeyo buu ku yiri anigu nin ganacsiga aqaana ayaan ahay suuqa magaalada Madiina igey buu yiri marka suuqii magaalada Madiina tusay baa leeyahay Mus'ab bin Umar Abdurrahman bin Auf markii dambe taajirka magaalada Madiina isaguna uu noqday keen ma oran islaamta keen lacagta keen oo qalkan isii ma oran asxaabtu tamac ma lahayn dad qanaaca la bay haayeen dad dowrsoon bay haayeen inaga dadka muslimiintu maanta iska daa wax kale hay-adaha say lacag iyo dhaqaale uga heli lahaayeen ayay aqalla yaro buulal oo beenbeen ay sameeyeen beenbeen buul beenbeen soo ma jiro bas dhugan ma bayaan lama laha buulashaas bush aqal busha oo beenbeen hada mid isku reerihiin ba hay'adda la shaqeeya marka uu leeyahay maalintaasan hay'adda soo wadaaye aqalladii yareeda buushashkii si dhex fadhiista markaas mid ayeeydi duqa u dhex fadhiisin waraawo iimaanka islaamnimadii aaway bariya gaal wax gaal laga soo qaaday ayaa muslimiinta sida u bariyaan maanta duqihii bay inta soo kaxayna aqalladii buushashka la dhex fadhiisiyo lug leeyahay maalinta hay'adii ba soo mareysay macooyo يا نوغا سيقال هلكا سي فدي او اسكا صبر او بياهنا سي عبو كليا وار maxaad u duqdo cadibaysa ilaahay maad gacmaha hoos dhigtida hay abaartu la fayd meelaadahay maanta ha colaadu la fayd meelaadahay ha roobkii ma aragtaan la bila barakada uu noqday laana qalbigi ba jeestay maanta maalinta ummadan ilaahay u soo noqoto ilaahay xaaladeena isaguna uu bedeli إن توبت كان أنو بحنا مركز نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة ديسا وحاو بري إن إلهي بريا إن باهدو دا إلهي أشيكتان إن قناعة موجيان قناعة والقناعة كنز لا يفنى قناعة قفك بني آدم كهدوه حلو وخزنت قفك أنا كدماني قال السيدي اللو بريا يعني نقول ما أنت هلكا عيان برينا هلكا تعني شقي طول مدح صحابة رسولكنا سعد بن الربيع بودع يا عبد الرحمن وحكويري حولها قال الله كو بركايو غيركا قال الله كو بركايو نين غنعسغا اقانا ayaan ahay magaalada Madiina suuqiga ida dhicib ku yiri ila markay u dambeysay uu noqdo taajir tujaarti reer Madiina kamida markaas uu isaguna sida u bixinay xoolihiisa sidaas فقير كوغي با إلهي كو حرمي
غنيغوغ إلهي بو كحرمي مدحدود إلهي بي كحرمان دليردود إلهي بي كحرمان هوينكود إلهي بي كحرمان تجارتود إلهي بي كحرمان ريميغوغ إلهي بي كحرمان ريمغالكوغ إلهي بي كحرمان هرومركو ماهن ودن لغو سميو iyo dhakhtar lagu sameeyo horumarku maaha horumarku waxa weeyaan waa dadkan oo Ilaahay sida wax looga qaato la baraha horumar la yiraahdo dadko barta sida Ilaahay wax looga qaato taas horumar la yiraahdo يا ربي أريتنا قدرتك فارنا عفوك ابو إبراهيم الأدهم سوى مركب سارا أيا بدي با كعدي نجي ناخذك دونت وضي با كويري ددكي مركب صارنا بدي با كعدو دبيلي الطوفانا يمدي نين ولو سوت كو بدبادي ادغي كو تالا markaasa wada oohin la barortay waxay dhamaan ay yaqiin sadareen wada dhimanayaan nin sheekh ogaayo oga sheekh Ibrahim al-Adham ba sarakaciyo ku yiri ala tara ila ma nahnu fihi bu ku yiri ya sheekh Ibrahim miyana arkayn buuri anagu halaaga aan ku suganahay wala halaag samee ilaahay noo bari hal markaliya go'ayntu iska qaaday ayuu samada eego wuxuu yiri ya rabbi awoodaadi baan da tustee afigaagana na tusbulo ilaahu sakaya afigu إلهي وحده له هجاجي مركلية ولي إلهي ولي إمسان أولياء لنا هي رهب لمسان أولياء ليه لما يقارن ما أنت لكن إمسان سياسية قبلها الله أو قبلها هي سياسية هي أدا قوة كشغية وحاسدتكم ما أنت كفانا يعني وحلدونا يا إن لقفانو إن أمة تشرادو ورنا نقول رجلا هي قانون هاي سنة إلهي بان برنا لكم واحد إذا إلهي بانو شاقنا عيدان إلهي هاي ما تبنو ما برنو قال هذا الميلا حدثك كون رسيه وحسيسين إيسا ما إن جعينا كون سينا يان بان مود إيسا مي إنك يا إلهي ما قالوا إنك لقويني يان يأيك لقويني يان ما تقانا مسلم كي ربي يسيك لجرى يان قالوا إلهي هم برنو إن شاء الله ده هذا الحمد لله إسلام ماذا وان كل لنا وانا قلنا إلهي لكن إيمانك وجوز زيادة وننا قسمة ومذهب أهل السنة والجماعة إيمانك وقول وانا عمل وبيريا مركز طاعة يا عبادة يا دعوة يا دين تلقى الشقينا إيمانك وكبع يا وزيادة يا قفلة يا معاصي مركز اللي عنا إيمانك وانا قسمة يا ما أنت هنا الإيمان كنا دسنو ينا لا غلط دسنا متكانوا بحنا الشاك ورب الله كيسد لو قعدت تاك فوق قواوين دسنا ينا الإيمان دسنا متكانوا بحنا أمة إيمان كنا لقد دسنا ما أنت الله بحنا يقين بالله أمة يقين تكذا وعنت ما أنت وقدا كوين حالك جوجنا نقولك قال لهم بتكون عيستان ذا إله نجي إلا من رحم ربي مويان وردلكاga aamin oo diintaada aamin oo ilaahaaga aamin oo inaku saamina oo waxaad ku ducaysataa ilaahu baladkayga nabadna igu sii arsaaqad xalaalana igu sii war qof walba dhulkiisu sharaf ku leeyahay qofku diintiisa sharafta u yeelaysa insha Allah dhahada marka ilaahay dartii u baxa oo dacwada u baxa oo diinta ka shaqeey waxay ka dhigan tahay war adiguna isdhis ummadda dhismeegana ummadda kala qayb gal ummadda dib u dhiskeega shaqada diinta waad ka qayb qaadan kartaa ka qayb qaada shaqada diinta yaayna fursadda ku dhaafin maanta waa adduunyaan joognaa bari toola banka qiyaamana iskugu iman doonaa ogaada kulligeen fursaddaas ayayna dhaafina dacwada ka qayb qaata oo yaana dacwada علماء يا ماركتان معلمين يا جماعات الصعود كلية يان لغو ايغيني وردين دقالها وحوات ku tari kartaa aqligaaga waxaad ku tari kartaa cilmigaaga waxaad ku tari kartaa hadalkaaga diinta waxaad ku tari kartaa ragnimadaada diinta waxaad ku tari kartaa nabi maxamed alayhi salatu wassalaam nin madafin nin walba kartidii ku jirtay nabigu uu maalay uu isticmaalay rasuul في عقلك بدنا عقلك سوء كمالي هو مالي نبي كي دقالها لهينا دقاله سوء مالي كي رجل ماذا لها رجل ماذا سوء مالي خالد بن الوليد رضي الله عنه
ayaa markuu soo islaamay buu seeftii nabiga u keenay waa maxay seefta Khalid oo maxaa kaaga qaadaa saxaabadaada rag badan baa ku laayay iga qaba buu ka yiri laga qaadi maayo xagga kala duula jeesanaysa buu nabigu ku yiri raganimadaadu soo baatilka xaqqa kuma socon marka hore hadda raganimadaadi iyo geesinimadaadi xagga baatilka ula jeesay buu nabigu ku yiri xagga baatilka ula jeeso waa ka baatilka adduunka haysta maanta geesinimadaada uu ilaahay ku siiyay xaqqa u isticmaal kii dhaqaale lahaa dhaqaalihiisii wuxuu ku bixiyay xaquu ku bixiyay kii cilmi lahaa cilmigiisii dacwadii diintu ku bixiyay kii waqti lahaa waqtigiisii diintu ku bixiyay asxaabu rasuulillaahi radiyallahu anhum nin walba intii uu hayay ayuu diinta ilaahay ku darsaday marka dacwada culimada kaliya maaha waxa ka mas'uula dacwada muslim kasto ashaadanaya inta aad taqaanid baa la rabaa ummadana wax ku anfacdo inta kartidaadu ay tahay ilaahay ku siiyay diintaada gasho markaas ay diinta noloshaada iman dadna markaas adduunkan iyo aakhirada diintaad ku liibaadi insha Allah dhahada yaa saud diyaara magacanta miso waqtigaad bixinaysa yaa in badan ba ahbaabta ugu lahaayeen soo ziyaaro Sheekh Maxamuud iyo macallinkay waa niimanay laakiin masaajidka magaciibuha masjidul iimaan Allahu akbar magaciisu cajiib wa antum jama'atul iimaan insha Allah dhahada wa calaynaga rabaa jamaacada inaad saartaan ilaahay dirtu u baxdaan oo fadhiga ka kacno madus سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت قريبا فإن تلفت نفسي فلله درها وإن سلمت فكان الرجوع قريبا إمام شافعي رحمه الله هل كل السنوات قرن إساء هل كل جاي هنا كما قرصنوا ومصر كاسودولك أيام بلر كيسي باعيسا أيام نقوش يا أبو يري سان مركا مراد كيجا أنو قادو haddii aan naftaydu sida ku tagtana buu yiri ilaahay bay ajr iyo thawaab ay ku leedahay haddii aan nabad qabana maalin ba soo noqon doontaa buu naftiisa ku waaninayay mana soo noqon waa ka masar ku asal sharqan wa gharban buu madhabkiisu gaadhay adduunka oo dhan ummadan waa inay la socotaa ummadu xaq war haddaad adigu xaqa la soconi weyday war baatilkii baa lala socdaa baatilkii waa dhaweyto مساجد أنكم بحسنين ودنا قاردا يوروب ودن كمدا dhalinyarna la socotay uu mid la soo galo buugaaf Soomaali ku qoran wariyaa ku siiyay naag cadaan iyo nin cadaan ay dhibay maxaa ku qoran buuga nabi ciise ilaahay buu hayo rumeeba ku qoran buuga dhamba markaas aan ku dhaw annaka tabliiq u soconay maana kibala la tabliiqay wallahi war hadii jamaacada ilaahay dartu u socotay qaarada dacwadu tagtay la dacweeyay ka qaarada hunguriga u tagay ka warama badbaadaya markaas حركة أيها أمد قيمة كل هذا بركاين هذا أفرفر بلود إن شاء الله هذا اجتماعي جيبوتي بدو وحنا على بشر كوبان نبي توبن كذا اجتماعي مقدسنا وحنا عندنا بشر الله بعد نحيي توبن كذا كالله بدأ اجتماع بالله نقرب مجمع هالكم فرديو إن الإله درته بحضان اليوم ديار سفي عن قعنته وتاجر أنا قعنته أنتم قصة جيبوتي لا تجي معي لنا ما شاء الله شيخ عبد الرحمن باير موجود إن شاء الله تشكيله